السلام عليكم markale waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale iyo barnaamijkeeni fikradii faalo fikradda aan jeclahay maanta in aan idin la wadaago waa fikrad ka sheekeynaysa sida guusha loo gaaro guusha waxay leedahay jaranjarooyin la maro jaranjarada ugu sareysa magaceeda waxa la yiraahdaa natiijadii guusha laakiin waxaan rabaa in aan conceptiga aragtida iyo fikradda maanta aan jeclahay in aan idin soo bandhigo magaceeda waxa la yiraahdaa the results pyramid waa marka waxa weeye concept ku siinaysa guushaada inaad gaartid natiijadaada inaad gaartid waxa loogu magac daray buurta pyramidka la yiraahdo oo badanaa wadamada sida Masar iyo wadamada la midka ah laga helo waa buurta saddex geesoodka u dhisan oo korkor loo fuulo oo waagi hore Masar oo kale faraacintii hore ayaa dhistay marka buurta waxay leedahay jaranjarooyin la koro jaranjarada ugu sareysa waxa la dhahaa the results level laakiin saddex jaranjaro oo hoose ayaa ka hooseeya marka saddexda jaranjaro marka kortid ayaa natiijada tagaysa natiijadaada marka haysatidna guushaadii ayaad haysataa marka conceptiga ama fikraddu waxay ku leedahay meesha ugu horeyso oo aad ka bilowdaysid waxa weeye experience khibrad sheyga waa inaad u leedahay waa in aad qof sheygaas haystay la soo shaqeysay waa in aad sheyga adiga mataqaana aad ku soo dhex jirtay waa in sheygaas adiga aad soo aragtay waa in sheygaas adigu waxa weeye aan lagaaga sheekeen khibrad waa inaad u haysatid muddo badan tusaale waxaa rabtaa in aad madaxweyne noqotid ama waxaa rabtaa inaad wasiir noqotid ama waxaa rabtaa inaad macallin noqotid ama waxaa rabtaa inaad ganacsi samaysatid marka ugu horeyso khibrad waxay noqonaysaa in aad dadkaas aad u agdhaweyd dadka ganacsatada ah qofka madaxweynaha qofka wasiirka ah qofka xildhibaanka ah qofkaas macalinka ah qofka injineerka ah in aad la soo shaqeynaysay muddo in aad mataqaana ag joogtay muddo si markaas waxa weeye khibradaas way aragnimadaas aad u heshay si markaas waxa weeye jacayl iyo xiiso iyo xamaaso aad ma garanaysaa aad u hesho marka jaranjarada koowaad ee aad koraysid buurta aad u koraysid waxa weeye experience jaranjarada labaad waxa weeye beliefs waa inaad rumaysid waxaan in la qaban karo oo aad samayn kartid kuna guuleysan kartid waa mindsetkii beliefkii weeyaan waa in maskaxdaada ay ku jirtaa waa in qalbigaaga uu ku jirtaa waa in ma garanaysaa adigu aad aaminsan tahay inaadan niyad jabin wax walba oo ku yimaaday aad mataqaana aaminsan tahay boqolkiiba boqol fikrad ahaan iyo qalbi ahaan aad u aaminsan tahay qalban wa qaaliban ayay culimada yiraahdaan marka waa beliefs inaad la timaado jaranjarada qayb saddexaad waxa weeye action markan waxa weeye hirgelintii baa laga rabaa ficilkii baa laga rabaa ku dhaqaaqii baa laga rabaa yani actionkii baa laga rabaa markan waa aamusaysaa oo Soomaalida meesha ay ka tiraahdo hadal yar iyo hawl badan shaqadii baa laga rabaa jadwal inaad qorato maalin walba ah subax walba ah dadka inaad gooni uga baxdo shaqadii laga rabay aad samayso yani waxa weeye subaxdii aad shaqeyso duhurkii aad shaqeyso galabtii aad shaqeyso habeenkii aad shaqeyso waxyaalahan dhan waxay ku siinaysaa marka in aad ficil iyo dhaqangelin aad la timaado taasaa marka waxay ku gaarsiinaysaa jaranjarada qaybta afraad ee ah results natiijadii baa marka helaysaa natiijada marka waa meesha ugu sareysa laakiin saddex jaranjaro ayaa ka hooseyso fikraddan marka waa fikrad guushaada aad ku heli kartid waa fikrad waxa aad rabtid yani waxa weeye si fudud aad ugu gaari kartid wax markiiba la helo maaha waqti bay qaadataa yani sanaday qaadanaysaa juhdi badan baa lagaaga baahan yahay fakar fara badan baa lagaaga baahan yahay dulqaad fara badan baa lagaaga baahan yahay adkaysi baa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay resources inaad la timaado team inaad la shaqeyso ayaa lagaaga baahan yahay marka shaqadu way badan tahay afartan jaranjaro oo la koraayo oo yani fikradda conceptiga the results pyramid u koraysid afar jaranjaro waxa weeye waqtiyo badan oo noloshaada ka mid ah ay qaadanayso marka saa ina ula socotidaan jeclahay insha allahu tacaala khayr badan baa idin rajeynayaa muuqaalkan dadka kale la wadaaga dadka kale gaarsiiya
ونسأرك دونا واسمقل دونا مركلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.